السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، waxaan kusoo jirnay hordhicii cilmu siiraha almabaadi alcashara licilmi siiraha ayaan soo qaadanay. waxaan hore u sheegnay kitaabkaan bilaabi doono siirada ka mid ah inuu noqon doono kitaabkii yar ee al-urjuuza almii-iya, waxaweye maaragtay nadmiga ah, boqolka beyd ah, uu iska leeyahay asheekh alcalaama cali ibn maxamed ibn abilciz alxanafi. sheekhaas oo geeriyooday 792 hijriga markay ahayd geeriyooday, calayhi min allaahi alraxma. kitaabkiisa al-urjuuza almii-iya layiraahda ayaan insha allahu tacaala bilaabeynaa. waa 100 beyd, waana insha allah waan fududeyn doonaa. waxaweye maaragtay sharax saa usii weyn masaari doono. waa un sheekhu wuxuu lafdiga un ku qori baan anagana insha allahu tacaala dulmari doonaa. kitaabku sheekhu wuxuu ka bilaabaa min wilaadati rasuuli sala allahu calayhi wasalam, maalinkuu nabiga dhashay ayuu ka bilaabay ilaa iyo maalinkuu dhintay ayuu ku geyn. al-urjuuza ayuuna ku magacaabay sheekh al-urjuuza. marka waxay ka dhigan tahay kitaabkan yacni wuxuu ku socdaa buxuurta. waxaa waa shicirka marka la fiiriyo awsaanta shicirka lagu qaado 17 mise waa 16. wuxuu ku socdaa marka baxru rajs ama baxru rajas ayuu waxaweye maaragtay ku socdaa. yacni wasankiisa waxawaan ku qaadaynaa baxarka uu ku socdo. waxaan leenahay mustafcilun oo waxaweye maaragtay 6 jeer lagu celi. shadriga koobaad waxaan leenahay mustafcilun. shadriga labaadna waxaan leenahay mustafcilun. beydkasoo 2 shadri soo kama koobnaad. markaan qaadayn waxaan leenahay dee mustafcilun markaan qurxin mustafcilun. halkaasuu ku socdaa marka al-urjuuza almii-iya, yacni waa gabaygaas ku socda baxru rajis ee 100 beyd ah, fii dikri xaali ashraf albariya, makhluuqaadka kii ugu sharafta badnaa xaalkiisa ka sheekeynaysa. yacni waa nabigeena sal alla alay wasalam ashraf albariya. waxaana iskala sheekha magaciisaan dhahnay cali ibnu maxamed ibn abilciz alxanafi, sadruddiin cali ibnu maxamed ibn abilciz alxanafi addimishqiyi. sanadkaa dashayna waa 792. marka aan galnad bismi illaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi alqadiimi albaari, ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور 12 في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان، وقبله حين أبيه حان. وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد 2 شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه. وبعد 6 مع شهر جائي، وفاة أمه على الأبواء. وبعد 6 مع شهر جائي، وفاة أمه على الأبواء. وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12. وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 اذكرا،
لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. الحمد mahadoo جنس الحمد mahadoo dhan lilaahi thaabitun lilaahi ilaahay subxaanahu watacaala ayay waxaweye maaragta usugnaatay, allihii alqadiimi horeey, allihii albaari makhluuqaadka abuuray, huma intaas kadib xamdigaas kadib salaatuhu salaatullaahi yacni ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa cala almukhtaari kii la doortay dushiisa ha ahaata waa nabi maxamed caleyhi salaatu wassalaam. alxamdu mahadoo dhan lilaahi allay usugnaatay, allihii alqadiimi horeey. alqadiim culimmadu waxay sheegaan inuusan ahayn yacni ismi ka mid ah asmaada ilaahi subxaanahu watacaala, maxaa yeelay asmaada ilaahi waa tawqiifiya yani waxaa lagu wada wuxuu ilaahi subxaanahu watacaala sheegay ama rasuulkiisa sheegay ayaan ku gaabsanaynaa, yani asmaada ilaahi subxaanahu watacaala iyo sifaadkiisaba. marka dee qadiim qur-aankana kuma soo aroorin alayiri, sunnada nabigeenana sala allahu caleyhi wasalam kuma soo aroorin. marka haddee alxamdu lilaahi, alxamdu mahadoo dhan lilaahi allah iska leh, allihii alqadiimi horeey bimacnaa alawal, yani allihii albaari makhluuqaadka abuuray bimacnaa alkhaaliq. huma intaas ka gadaal salaatuhu yani huma yani waxay ka dhigan tahay yani bacda alxamdi, xamdigaas kadib salaatuhu salaada ilaahay subxaanahu watacaala, salaatuhu ay salaatullah naxariista ilaahay subxaanahu watacaala ay ammaantiisa cala almukhtaari nabiga sala allahu caleyhi wasalam dushiisa ahaata. mukhtaar hadee waxaa weye kii la doorto, wastafaanii min bani aadam somehned, wastafaanii min bani aadam, allahu yastafii min almalaaikati rusulan wa min annaas. ilaahay subxaanahu watacaala malaaigta iyo dadka rusul ayuu ka doortaa. marka nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu kamid yahay dadkii waxaweye ilaahay subxaanahu watacaala doortay nabiyaasha. waxay dhahaan hataa mukhtaar hadee ismu min asmaai nabiy sala allahu caley wasalam inuu yahay way sheegaan, hadee mukhtaar mustafaa marka way sheegaan. wabacdu intaas kadib bacdu bacda alxamdalati wasalcamati, sheekh basmalo kuma bilaabin, kitaabka basmalo sheekh kuma bilaabin umalayn hadii ima qoran. mawliduhu hadee sheekh waxaweye hadee sababtu xamdiga ilaahi subxaanahu watacaala ugu bilowd xadiidka nabigeena caleyhi salaatu wasalaam ayuu sheekh ku camal fala oo wax walbo waxaweye maaragta arin u saaxiib oon lagu bilaabin xamdiga ilaahi subxaanahu watacaala fa huwa waxaweye maaragtay mid baraka yar waaye hadee munqadac. marka wabacdu intaas kadib haaka ho ismu ficil amar waaye hade bimacnaa khud, haaka khud ay qaada yani. wabacdu intaas kadib haaka qaada siirata rasuuli siirada nabigeena sala allahu caleyhi wasalam iga hoo manduumatan xaalo ay tahay waxaweye mid la taxay oo la gabyo yani, muujazat alfusuuli fasalyaalkeedana waxaweye maaragtay lasoo gaabi iga hoo. wabacdu intaas kadib haaka hoo siirata rasuuli siirada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam iga qaada manduumatan xaalo ay tahay mid gabi ah oo la taxay. hadee carabiga waxawaaye kutubaha kuwana hade waa nadm, kuwana waa nathri soomadi. nadmi waa kuwa waxaweye maaragta dee waxaweye maaragta kuwa gabayga ayaa waxaweye la yirahdaa nadmi aw ilmanduuma. hadee sababta waxaweye maaragtay culimada waxaweye maaragtay ugu koobiyaan waxay tahay in hadee waxaweye maaragtay dadka ay fahmaan xifdiga waxaweye uu ku fududaado lisuhulatihi filxifd. marka manduumatan mid la taxay iyadoo ah oo gabi ah, muujazat alfusuuli fasalyaalkeedana lasoo koobo. fasalyaalkeeda lasoo koobo marka sheekh meeshan wuxuu ka wadaa yani fasalka kuma dheeraanayo. nabiga sal slam dhalashadiis waxayran kaaga sheegaa, nuujintiis waxayran kaaga sheegi, koritaankiis waxayran kaaga sheegi, waxaweye maaragtay ghazawaadka waan soo koobi mid waxayran ka sheegi, yani saasuu ka wadaa muujazat alfusuul. mawliduhu fi caashiri alfadiili rabiicin alawali caama alfiili. mawliduhu nabiga sal allahu alay wasalam dhalashadiisa fi caashiri alfadiili fi caashiri shahri alfadiili tobankii waxaweye bishii fadliga lehed ayuu nabiga dhashay sala allahu caleyhi wasalam. oo bishaas waatee rabiici lawali ka bedelade rabiici lawali rabiici lawal laheyd
caamal fiili sanadkii waxaa waye maaragtay caamal fiil. mawliduhu nabiga dhalashadiisa waxay ku aadaneed fii caashiri lfadiili fii caashiri shahri lfadiili bishii fadliga lahayd tobankeedii bishee rabiicil awali ahayd caamal fiili sanadkii waxaa waye maroodiga. rabiicil awal de waxaa waye marka bilaha kasoo tirna muxaram safar rabiicil awal de waa mid saddexaad sooma bisha ayada tobankeedii ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam dhashay sanadka maroodiga caamal fiil. caamal fiil de waan wada garanayna waa sanadkii waxaa waye nabigan sallallahu alayhi wasallam dhashay waxaa waye maaragtay ninkii abraha uu kusoo weeraray kacbada maroodiyaasha ciidanka badnaayo ilaahi subxaana watacaala halaagay. bismillaahi raxmaani raxiim alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi ilfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil. marka waa kaasa waayahay laakinama almashhuuru laakinama hase ahaatee almashhuuru sida caanka oo la wada aqaano thaani cashrihi 12 nabiga dhashay sala allahu alay wasalam 12 nabiga dhashay bisha rabiicul awal fii yowmi lithnayni maalin isniin ayuu nabiga dhashay calayhi salaatu wasalaam duluuca fajrihi weliba fajirkiisa markuu dhalinay subaxdii markuu waaga baryaya ayuu waxaa waye nabigeena calayhi salaatu wasalaam dhashay. laakinama almashhuuru sida caanka ah thaani cashrihi yacni marka meesha hadda waxaan ka qaadanaynaa in waxaa waye dhalashada nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu khilaaf ka jiro. yacni culimmada waxaa waye isku khilaafeen taariikh gooni oo sugan waxaa waye maaragtay uusan aan la sheegi karin maanta la dhihi karin nabiga taariikh 12 dhashay iyo taariikh 10 dhashay aan la sheegi karin taariikh sugan. maxaa yeele culimmadu way isku khilaafeenoo hadee culimo 10 taariikh 10 oo nabiga dhashay calayhi salaatu wasalaam ku tagtay waxaa waye maaragtay taariikh 12 taariikh 8 taariikh waxay way maaragtay 9 ayay waxaa waye maaragtay culimmadu iskugu khilaafeen. marka hadde waxaa waye nabiga inuu waxaa waye maaragtay maalin isniina dhashay waa la isku waafaqsan yahay oo waxaa yowma alithnayn tuluuca fajri sooma maalin isniin inuu dhashay nabiga sallallahu alayhi wasallam. maxaa yeele nabiga marka la weydiiyey maxaad u soomaysaa soonka muxuu yiri daaka yowma wulidtu maalinta waa maalintii la dhalay sooma maalinta waa maalintii la dhalay maalin isniina nabiga sallallahu alayhi wasallam in waxaa waye maaragtay waxay ku soo deg way sugan tahay. maalin isniina inuu nabiga hijroodo oo madiino u aad waxaa waye maaragtay way ku sugan tahay. maalin isniin inuu waxaa waye maaragtay uu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu madiino tagay iyadana way suganta. maalin isniin inuu dhashay way suganta. intaba nabiga intaba waxaa waye kitaabkeena aan ku arki doonaa oo waxaa waye maaragtay tu walba nabigan sallallahu alayhi wasallam yacni mu'allifka raximahullahu tacaala tu walba waxaa waye waa noo sheegi doonaa nabiga sallallahu alayhi wasallam isniin walba waxaa waye aan hadda sheegi wuu noo sheegi doonaa kitaabkeena ku sheegi. marka maxaa la yiri laakinama almashhuuru sida caanka ah thaani cashrihi waxaa waye maaragtay 12 ayuu dhashay. ahlu cilmiga marka khilaafa ka jira ogowga waaya. fii yowmi lithnayni maalin isniin ayuu dhashay nabiga sala allahu calayhi wasalam tuluuca fajrihi fajirkiisa waxaa waye maaragtay iyadoo soo baxaysa calayhi salaatu wasalaam yacni maalinta waaga iyadoo berigo nabiga dhashay. wawaafaqa 20 min nisaana waqablahu xaynu abiihi xaana. wawaafaqa waxay waafaqsaneed yacni taariikhda iyada waxay waafaqsaneed 20 min nisaana bisha niisaan la yirahdo. niisaan waxaa waye bilaha waxaa waye shuhuuru sana shamsiya bilaha waxaa waye maaragtay caadiga shuhuurul miilaadka bisha afaraad ayay waxaa waye niisaan dhahaan ama bisha abriil ayay dhahaan marka waa abriil ay ka wadaan. wawaafaqa waxay waafaqsaneed 20 min nisaana bisha abriil la yirahda. waaye wawaafaqa 20 min nisaana waqablahu xaynu abiihi xaana. waqablahu ay waqabla mawlidi nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiga intuusan dhalin ka hor xaynu abiihi yacni ajashii aabihiis xaynu waxaa waye hadee ajal ama geerida aabihiis ayaa xaana imaada xadara yacni xaynu aabihiis dhimashadiis ayaa xaana imaaday oo waxaa waye aabihiisa geerida ay ku imaaday aabihiisa dhintay. wawaafaqa 20 min nisaana waqablahu xaynu abiihi xaana yacni waqablahu qabla mawlidi nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiga intuusan dhalin. marka hadee culimmadu waa isku khilaafeen waxay leeyihiin hadee nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu dhalina aabihiis dee goormuu dhintay
marka culamada waxay inta badan leeyihiin dee nabiga sal lla ly wasalam calooshuu ku jiri, marka waxaa weye nabigu 6 bilood calooshuu ku jiro aabihiis waxaa maaragta u dhintay ay leeyihin culamada qaarkood. culamo qaarkoodna waxay leeyihin yacni marka nabiga sal ly salam la dhalay kadib ayuu aabihiis dhintay, marka waxaana raajix ah inuu nabiga sal ly salam caloosha ku jiro aabihiis markuu dhiminay. wabacda caameyni ghadaa Fatima jaaءat bihi murdicuhu saliima xaliimatun liummihi wacaadat bihi liahliha kamaa araadat. wabacda caameyni 2 sano kadib, 2 sano kadib dhalashada nabiga sal ly salam 2 sano kadib, ghadaa nabigu wuxuu ahaaday, ghadaa bimacnaa asbaxaya, ghadaa nabigu wuxuu ahaaday min akhawaati kaana waa ghadaa nabigu wuxuu ahaaday Fatiman mid naaska waxaweye ka guray, oo naaska waa laga guray nabiga sal lla ly wasalam. Fatim waxaweye maaragta markii waxaweye cunuga waxaweye marka naaska laga guriy fa huwa Fatimu, waa kaa marka fasluhu min alradaac, yacni markii nuugmada waxawaa laga jaro laga guriyey naaska. waa markuu 2 sano dhameysto. walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawleyni kaamileyn, yani muddada waxaweye maaragta hooyooyinka ilmaha inay nuujiyaan la rabo 2 sano. walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawleyni kaamileyni liman araada an yutima aradaac. marka bacda caameyni ghadaa Fatima jaaءat bihi murdicuhu saliima. bacda caameyni 2 sano kadib ghadaa nabigu wuxuu ahaaday Fatiman mid naaska laga guri. jaaءat way la imaaday bihi, horta intaanan taas fasirin waxaa sugaataa nabigan sal lla ly wasalam nuujintiisa. hooyadiis markay nuujisay nabi sal lla ly wasalam meel la dhalay, hooyadiis ay nuujisay, waxaweye maaragtay dib mar labaad nuuji Xaliima binti Du'eyb waxaweye maaragta Assacdiya, Xaliimatu binti Abi Du'eyb Assacdiya, Xaliimatu Sacdiya yaa nabigu soo nuujisay. Xaliimatu Sacdiya hadee baadiyay degnaan jirtee, nabiga sal lla ly wasalam baadiya waxaa maaragtay u qaadatay kusoo nuujisay. markay soo nuujisay nabi sal ly wasalam oo 2 sano jir yay hooyadiis u keentay tiri hadde waan soo nuujiyey wiilki, waa kana ogow. ka dambe haddana waxaa layidhi hadee wiilki bal haddana dib u qaada. ayadaa marka horeba waxaweye maaragta nabiga barakaadkiisa iyo markay aragtay cidda inaysan gaajo ka jirin markuu nabiga kusoo biiray ayaa waxaweye maaragtay codsatay. ilaan 2 sana lagu heshiiyey marka hore, waxay codsatay hadde in 2 kale looga daro oo waxaweye maaragta wiilka ay soo haysa. maxaa yeelay magaalada waxaweye maaragta xanuunadeeda iska badan. marka Xaliimo marka wiilka ay keentay 2 sano markay soo nuujisay, haddana waxay tiri wiilka haddana dib 2 kale aan u ceshta, haddana waa lagu daray waa ceshatay. 4 sano usoo jiray keentay markaan fiirin. wabacda caameyni 2 sano kadib ghadaa nabiga wuxuu ahaaday Fatiman mid naaska ka guri. jaaءat bihi way la imaaday bihi nabiga sal ly wasalam murdicuhu islaanta nuujinaysa nabiga sal ly wasalam way la imaaday saliiman soo nabad qaba nabiga sal ly wasalam oo aan xanuunsaneyno waxaweye maaragta balaayo aan qabin yay keentay. islaanta nuujinaysa waa tahay Xaliimatun waa Xaliima liummihi hooyadiisa ay u keentay, liummihi ilaa ummi hooyadiisa ay u keentay. wacaadat waxaweye maaragtay way la noqotay bihi nabiga ay la noqotay. wacaadat hadee hiya waa faacilkii waa Xaliime, wacaadat way la noqotay hiya Xaliimadi bihi nabiga ay la noqotay sal lla ly wasalam liahlihaa ahalkeeda ula noqotay ciddeedi. kamaa araadat say rabtay waabe kamaa araadat sida ay marka horeba dooneysay ayay waxaa maaragta ceshatay. Xaliimatun liummihi wacaadat bihi liahlihaa kamaa araadat. فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه. أنت سنوجه والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.